maanta waxaynu halkan isugu nimi in aynu ka tashano inagu muwaadiniin reer Soomaaliland ah qaabkii iyo dhisayinka aynu u dejin lahayn kootashigiisa mashruuc soo socda insha Allah taala oo la xiriira kala duwanaanshaha nolosha bad iyo bariba leh waa ku mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waan soo dhaweynayaa ujeedada maanta aynu isugu nimi waxa weeye inaynu wada tashi ka samayno shirka noolaha ku nool bariga badda dhirta mashruuc weeyaan cusub oo hadda aan bilaabayno hadda aynu macnaha qorsheyntiisii iyo jaangooyadiisii iyo arrinkiisiiba hadda maanta aynu u fadhino aynu bilaabayno mashruucan maalgeliso hay'adda la yiraahdo deegaanka qaabilsan ee globalka ah ee la yiraahdo Global Environment Facility marka hay'addaas waxaan ka rajaynaynaa in wadaxaajoodkeena wuxuu ka mid yahay waxyaabaha conditionka in mashruuc kasta oo noociisan ah oo la fulinayo in dadka daneeyayaasha eelihi inay ka yimaadaan mashruucan waxaa qorshihiisa ku jirta in meelaha laga fulinayo ay ka mid tahay meesha la yiraahdo Sacaadadiin oo Saylac ku taala iyo meesha la yiraahdo Daalo oo ku taala Sanaag labada eriyo ayaa macna bilowgiisu uu umka qorsheysan in waxyaabo meelaha gudbinna ka mid ah oo qorshihii koowaad baseline-kii ama gogol dhigii ugu horeeyay ee mashruucan la xidhiidhay ayaa meelaha la dooray lagana soo sameeyay ma garanaysa marka waa mashruuc halka meelaha ku jihaysan marka maanta shirkeenu wuxuu abaarayaa oo uu la xidhiidhaa in aynu ku shaqayno bal sidii loo heli lahaa xog aynu ka soo saarno dee documentkii ama proposaladii mashruuca inaynu ka soo saarno kuwaasoo ay gundhig u noqonayaan ama dee waxyaabaha ay ka duulayaan ay ka mid tahay fikradihiina kuwaasoo salka ku haya tools aan isticmaali doono ama agab aan isticmaali doono oo loogu talagalay in xogta lagu ururiyo oo iyagana dee hadhowto aan idinla share garayn doono waxaynu eegaynaa markaa dhinaca siyaasadda maxaa siyaasada ee noolaha ama deegaanku ay u baahan yihiin imika inoo jira ama inaga qabyaa ee ay tahay inaynu wax ka qabanno oo aynu mashruucan uga faa'iidaysano maxaa barnaamijyaha ee ay tahay inaynu aynu ku waajahno matalan noolaheena bad joogo ha joogo ama bari ha joogo waliba khaasatan labada meelood ee aan tilmaannay maxaa laga qaban karaa ee aynu mashruucan uga faa'iidaysan karnaa ee aynu kaga qaban karnaa shirkani ama seminaarkan halkan iyo ama isweydaarsigan halkan maanta lagu qabanayo aad iyo aad buu muhiim u yahay wuxuuna ku salaysan yahay sidii mas-uulkii ugu horreeyay sheegay dabaqabashada ama ka dabataga kala duwanaanshaha nolosha noolayaasha ama badda ku nool ama beriga ku nool in la dabaqabateeyo waxaana loo doortay labada gobol ee darifyada dalkeena ah ahamiyadda ay leeyihiin Sacaadadiin ahamiyadday leedahay Daalo ahamiyadday leedahay labada midna gaar ahaan Daalo sidii ay ahaan jirtay ma aha waxaana ugu wacan dadkii oo ama tiradiisii badatay ama cimiladii oo isbedeshay ama farsamo xumo inagu jirta xagga dhaqaalaynta hadday dhir tahay iyo hadday dhulkaba tahay oo wixii noolayaashii dalkeena ku noolaa hadday bad ku noolaayeen iyo hadday beriga ku noolaayeenba maanta wax yar ka sii qiiqayaan insha Allah de waxaan idin rajaynayaa in shirka qayb weyn aad idinkuna ku dari doontaan mashruuca de dhismihiisii hay'addu ku jirtaan inuu inoo guuleysto ay inooga soo baxaan wax meel mara